kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan waxaan leeyahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ee maanta. barnaamijka faaqidaada maanta waxaanu kusoo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Grealish oo ku biiraya kooxda Everton, sidoo kale into Safinho oo wada xaajood ay kaga jirto kooxda Tottenham, Enzo oo loo ogolaaday Arsenal inuu ku biiro iyo wada xaajood u socda kooxda Crystal Palace iyo Arsenal. sidoo kale into Palace ayaa waxay sheegtay inay fasaxi doonto kabtankooda Gueye haddii uu markaasi saxiixi waayo heshiis cusub. haddaba sidoo kale into waxaa la sheegay oo markaasi kooxda Al Nassr ay la wareegtay ciyaaryahanka Coman oo markaasi 35 milyan ee kaga la wareegtay kooxda Bayern Munich. qodobadaas iyo qodobo kale inta ayaa markaasi ku faaqidi doona barnaamijka inta socdo. fadlan haddii aad nagu cusub tahay inuu follow garay, haddii aad saaxiib hore noo lahaydna fadlan sii share garay si uu u gaaro asxaab fara badan. commentiga ilaa kan hanaga ilaabin. mahadsanidin. aanu ku bilaabay qodobkeena ugu horeeya barnaamijkeena faaqidaada saaka ayaa waxaa kamid ah Everton oo markaasi heshiis la gaartay kooxda Manchester City si uu ugu biiro ciyaaryahanka Grealish oo boos joogta ka waayay kooxda Manchester City. Grealish ayaa maanta waxa uu ku biiraya kooxda Everton, waxayna Everton la soo wareegaysaa ciyaaryahankan gelinka dambe maantana waxaa la filayaa inuu markaasi maro tijaabada caafimaadka. Grealish ayaa waxaa sanadkii ugu dambeeyay oo ahaa ciyaaryahan aan in badan ba helin fursadaha muhiimka u ahaa inuu markaasi safto kadib markii ay kooxda Manchester City ay la soo wareegtay ciyaaryahan Safinho iyo waliba ciyaaryahan Duku ayaa markaasi kala wareegay gabi ahaanba booska oo markaa ciyaaryahankan ka dheli jiray ee garabka bidix, asigoo markaasi lagu eedeynayo bandhigiisa inuu ahaa mid aad u liito ciyaaryahan Grealish. haddaba Everton ayuu ku biirayaa maanta, waxayna ku wada heshiiyeen labada kooxood inay si amaah ah ay markaasi ugu wareejiyaan kooxda Everton ciyaaryahanka Grealish. maanta ayaana markaasi oo tijaabada caafimaadka u mari doona Everton. sidoo kale into Tottenham ayaa iyaduna isweynayso oo markaasi ciyaartoy aad u fara badan oo muhiim ah ay la soo wareegaysaa. walow tababaraha kooxdaasi oo hore u sheegay inuu u baahan yahay inuu helo booska ciyaaryahanka Madison oo markaasi dhaawiciisu aad u fara batay oo soo laabanayo inuu u helo ciyaaryahan number 10 kaga ciyaara ama qadka dhexe ee qayb booska number 10 oo ciyaaryahanka kubad sameeyaha ah, gaarsiiya gooldhaliyaasha ciyaartoyda ah iyo waliba garbaha la ciyaari kara. ciyaaryahanka Grealish ciyaaryahanka dhexe Madison ayaa inta badan wuxuu yahay mid dhaawacma, laakiin maanta Tottenham ayaa waxa ay wada xaajood kala jirtaa kooxda Manchester City si ay kala wareegi lahayd ciyaaryahanka Safinho oo garabka bidixna ka ciyaara. ciyaaryahankan ayaa waxa markaasi u muuqda inuu ku biirayo kooxda Tottenham kadib wada xaajood oo markaasi u socday kooxda Tottenham iyo Manchester City ayaa waxa uu yahay mid markaasi miradhal leh oo la filayo in maalmaha soo socda ay ka wada hadlaan sidoo ku biiri lahaa ciyaaryahankan ama ay dalab kaga soo gudbiyaan Tottenham qiimaha ciyaaryahankan kaga baahan yihiin. walow Manchester City aysan iyaduna ay sheegeen in ciyaaryahankan uu iib yahay iyo ama inuu markaa amaah kaga tigi karo sanadkan. qodobkaas iyo wixii ku soo kordho dib ayaa markaasi kala soo socodsiin doona hadduu eebeedmo. sidoo kale kooxda Crystal Palace ayaa waxay sheegtay ciyaaryahan Eze in markaasi ay siin doonto ama ay ku wareejin doonto heshiiska ay la gaartay kooxda Arsenal, oo Arsenal ay aqbashay heshiis gaaraya 63.5 milyan oo pound oo markaasi ay Crystal Palace kala wareegi doonto ciyaaryahankan. walow heshiiskan oo markaasi labada kooxood ba ay weli si fiican iskugu afgaranin oo ay yahay in Crystal Palace ay rabto lagu baxsho 2 sano gudahooda maadaama ciyaaryahankan ay lahayn lahaanshaha kooxdaasi oo 50% ay qaadanayso kooxdii hore looga soo iibiyay ciyaaryahankan. haddaba Arsenalna waxa ay doonaysay inay markaa kula wareegto ciyaaryahanka 63.5 milyan oo mar hore ay aqbalay, laakiin 3 sano ay waxay rabtaa inay ku dhiibto ciyaaryahanka lacagtiisa. balse Palace ayaa maanta waxa ay sheegtay agaasimaha Crystal Palace ayaa maanta waxa uu sheegay in ay siin doonaan ciyaaryahankan kooxda Arsenal, balse waa in ay markaasi heshaa Crystal Palace ciyaaryahan booskiisa buuxiya oo ay iminkan ku mashquulsan yihiin helitaanka booska Eze oo markaasi ay doonayaan inay helaan. sidoo kale
kabtanka kooxda Crystal Palace waxa uu sheegay agaasimaha kooxdaasi in uu markaasi gedi doonaan koox caalay kooxdii markaasi u soo bandhigta lacag ay u baahan yihiin waa haddii uusan saxiixin heshiiska cusub oo ay soo bandhigeen kooxda Crystal Palace ciyaaryahanka kuwii waxa uu yahay ciyaaryahan lafdhabar u ah difaaca dhexe ee kooxda Crystal Palace iyo waliba xulka qaranka dalkaasi Ingiriiska. haddaba waxaa raadinayay kooxda Liverpool oo in badan ku rajo weyneed si ay u heli lahayd ciyaaryahan oo dhowr jeer dalabaad ka soo gudbisay laakiinse ay kooxda Crystal Palace aysan markaasi aqbalin. ilaa Crystal Palace ayaa waxa ay markaasi rabtay inay u soo bandhigto heshiis cusub heshiiskaas oo saxiixo ciyaaryahankan waxaasi ku iibsan karayaan lacag aad u badan laakiin haddii uu heshiiskaas waayo waxay noqon doontaa in ciyaaryahanka ay ku iibiyaan qiimihii markaas loo keeno. ugu dambeeya ayaa waxa markaasi kooxda Bayern Munich ayaa ka aqbashay kooxda Al Nassr ee ka dhisan Sacuudi Carabiya inay qaadato 35 milyan oo pound lacag gaaraysa 35 milyan oo euro oo ay kula wareegaysa ciidanka Coman oo biiraya kooxda Al Nassr waxaana saxiixay heshiis gaaraya 3 sano oo ay kooxda Nassr ay ugu biirno heshiiska oo Coman oo 3 sano walow kooxda in badan dhisayaan ciyaartoy badan la keenayo. sidoo kale sanadkan waxa Cristiano Ronaldo keenay inuu markaasi ay garabiyaan gool dhalinta iyo waliba horyaalka dalkaasi Sacuudiya Pro oo markaasi loo keenay kamid yihiin ciyaaryahan Joe Felix iyo waliba oo labadooduba ay yihiin laba garab oo innaba caadi ahayn. toydan ayaa markaasi ka caawinaya Crystal Palace Cristiano Ronaldo sidoo ku heli lahaa guud u fara badan. saaxiib haddii aad nala soo gaarteen ilaa iyo barnaamijkeena fadlan waxaan ka codsaa inaa markaasi followino page-ka haddii aan follow ahayn. haddii aad hore noola joogteen noo sii share comment iyo laagana haabin fikirkaagana waa inoo aad baad u mahadsantiin asxaabtayda qayaha naga mudan tan inta dib u kulmi barnaamij caynkan oo kale waxaan idin kala sidaa iyo nabad.